maamulka degmada Heliwaa ee gobolka Banaadir ayaa waxa ugu baaqay hay'adaha miinooyinka ka saara inay degmadaasi ku jiraan miinooyin lagana yaabo inay dadka waxyeeleeyaan sidaas darteedna ay tahay in laga saaro warbixintan waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Qaali Axmed Macallin gudoomiyaha degmada Heliwaa ee dawladda Soomaaliya Cumar Jacfaan oo maanta xarunta degmada Heliwaa kula hadlayay saxaafadda ayaa waxa uu eedeyn u jeediyay hay'adaha miinabaarista ee ka howlgala Soomaaliya isagoo ku eedeeyay in degmada uu ka taliyo xilligan ay ku duugan yihiin waxyaabaha qarxa kuwaas oo dhibaato u geysan kara shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan degmada Heliwaa ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha ayaa ka dalbaday hay'adaha miinabaarista ee ka howlgala Soomaaliya inay yimaadaan degmada isla markaana ay ka saaraan waxyaabaha qarxa si ay u yaraato dhibaatooyinka ay geystaan waxyaabahaasi dadaal fara badan sameynay ka degmaan ma aanan helin dadka macnaha kuwa xataa meelooyinka aruurinayay ama rasaasta aruurinayay aniga dee waxaan askari waxaan isticmaalay aqoontaydii intaan tabartaya waxaan ururiyey hooreyaashii banaanka daadsanaa waxaan ururiyey sabanka dabadiisii oo macnaha rasaastii aan qarxin oo dhan waxaa wixii qarax maarta u suuragelin kara inay qarxaan inta badan aniga shakhsiyan soo ururiyey kolay qolada main action iyo kuwa maaragtay miinaduna ma iman degmada kaarana dhinaca xigtana way tagay yakshu dhinaca xigtana way tagay waxaa halkan looga boodana ma garan karo alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan markaa ilaahay maadisa leh ilaahay aniga baray inaan shaqeeyo shakhsiyan u shaqeeyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Heliwaa ayaa waxa uu amaanay shacabka ku sugan degmada Heliwaa oo uu sheegay inay la shaqeeyaan ciidanka dawladda ee ku sugan degmadaasi waxaana uu ugu baaqay dhinaca kale hay'adaha samafalka inay caawiyaan dadka dhibaataysan ee ku sugan degmadaasi waxaan leeyahay marka hay'adaha kuwa maaragtay miinada kuwa maaragtay dugsiyada iskuulada dhisa kuwa maaragtay nabadgelyada qabliga ka qayb qaata kuwa maaragtay bixiyaasha dhammaantood degmada Heliwaa way ka qadsan tahay sababta ay markaas ay u qadiyeen lama garan karo waxaa la yidhahdaa degmada lama tegi karo waxaa yaalla waxaa lagu dilaa dadka waxaa maaragtay nabadu kama jirto waa been iyo kadib marka waxaan leeyahay kuwa deeqbixiyaasha ow been ha sheegin ilaahayna ka cabsada u imaada dadkan wixii lagu dhiibana wax ka soo gaarsiiyey Qaali Axmed Samsad Muqdisho.